Maxkamadda sare ee dalka Malaysia maalinimadii shalay waxay laashay abiilkii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Najib Razak kaasoo dhowaantan maxkamaddu ugu xukuntay 12 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inuu musuqmaasuq sameeyay xilligii uu ra'iisul wasaaraha ahaa. Najib Razak ayaa dalka ra'iisul wasaare ka soo noqday wixii u dhaxeeyay 2009 ilaa 2018. Xilligaas ayaa la sheegay ra'iisul wasaarahan isagoo awoodiisa si xun u isticmaalaya inuu lunsaday hanti ka badan 4 bilyan oo dollar. xilli dambena dowladda Mareykanku waxay badbaadisay Malaysia oo u soo celisay 1 bilyan iyo 200 milyan oo lacagta ka mid ah. 2018 markii doorashada uu ku guuleystay ra'iisul wasaarihii dalka Malaysia Mahathir Mohamad oo harag wacdaa siyaasi waqti badan ka soo taliyay dalka, waxa uu bilaabay baaritaanka arrintaas oo dhaba. waxaana ku cadaatay ra'iisul wasaare Cabdirasaaq inuu lunsaday hantida qaran. wax yar dabadeedna waxaa lagu xukumay 12 sano oo xarig ah. waxayna maalinimadii shalay ahayd maalintii loo ballansanaa in maxkamadda sare ay ka jawaabto abiilkii uu xukunkiisa ka qaatay, taasoo uu gebi ahaanba ku guuldaraystay. waxaana uu maalinimadii shalay ku dooday inuu bedelay qareemadiisii. qareemada cusub oo haatan haystaana aan ahayn kuwo u dhundaloola kiiskiisa, sidaa darteed waxa uu maxkamadda ku codsaday in la siiyo muddo 3 bilood ah. gebi ahaanna maxkamadda sare waa mid diiday arrintaa. waxaana maalinimadii shalay la arkayay ra'iisul wasaarahan hore oo boorsooyinkiisa loo sii daadguraynayo xabsiga cusub halkaas uu ku noolaan doono haddiiba cimrigiisu ku simo 12 sano soo socota. ra'iisul wasaarahan hore ayaa haatan da'diisu tahay 69 sano. haddiiba uu noolaadana waxa uu xabsiga ka soo baxaya isagoo 82 jir ah. Najib Razak ayaa ka dhashay qoys aad looga qadariyo dalka Malaysia. aabihiis iyo adeerkiisna waxay hore u soo noqdeen ra'iisul wasaareyaasha dalka Malaysia. isaga qudhadiisu waxa uu wax ku soo bartay dalalka reer galbeedka ah. waqtiguu dalka Malaysia dib ugu soo noqdayna waxay ahaayeen dadka Malaysiyaanka ah kuwa aad ugu hanweyn. marnaba lagama filanayn inuu noqonayo nin ku takrifala awoodiisa dhacna u geysta dadka Malaysiyaanka ah. dadka reer Malaysia ayaa ku xusuusan doona Najib Razak 2 arrimood, kuwaasoo kale ah inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay isagoo xilka haya lagaga adkaado doorashada guud, iyo inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Malaysia oo xabsi lugihiisa dhigay.